waxa uu yidhi sheekhii la odhan jiray xasanulbasri anigoo maalin socda waddada gasha magaalada madiina ee aadka u kulul waxaan arkay janaase ay wadaan 4 nin oo qura waxaan isweydiiyey subxaana allah ma janaase dhan oo ay sidaan 4 nin oo qura wallaahi kan shaneeye ayaa noqonayaa waxa uu yidhi xasanulbasri waan daba kacay waxaana sugayey ilaa ay ka aasaan markii ay aaseen oo hawshii dhammeeyeen ayaan 4tii nin joojiyey oo weyddiiyey maxaad 4 oo keliya u tihiin waxa ay ku jawaabeen wallaahi garan mayno hooyadan da'da ah ayaana soo ijaaratay amana soo karaysatay si aan meydkan u dhaqno oo u kafanno kadibna u qaadno oon u xabaalno ama aasno waxa uu yidhi xasanulbasri subxaana allah 4 nin xitaa ma hooyadan da'da ayaa soo ijaaratay waxa uu yidhi waxaan gudagalay inaan eego xaaladda hooyadan da'da ah markii hawshii laga dhammaaday kadib waa ay fadhiisatay qabriga agtiisa kadibna 2 gacmood ay xagga samada ama cirka u taagtay iyadoo odhanaysa rabbiyow rabbi aan adiga ahayn malihi kani waa wiilkaygii caasiga ahaa ee qalbiga adkaa wax badan ayuu ku caasiyey amarkaagana uu ka hor yimid ee rabbiyow u naxariiso ilaahuw dembigiisa u cafi oo iska saamax rabbiyow rabbi aan adiga ahayn malihi xasanulbasri waxa uu yidhi kadibna haweenaydii waa ay ooysay aad bay u ooysay haddana wax yar kadib waa ay dhoolla caddaysay markaa ayay dhaqaaqday waan la yaabay arrinkeeda waan daba kacay ayuu yidhi joogso ilaah baan kugu dhaariye wax iiga sheeg arrinka janaasadan markaabay tidhi war iga fogow oo idhaaf dhibaatada ama musiibada aniga igu dhacday adiga kuguma dhicine xasanulbasri waxa uu yidhi waxaan ahay xasanulbasri oo ka mida culummada muslimiinta markaabay tidhi haddii aadan ahaan lahayn mid ka mida culummada muslimiinta arrintan kuuma sheegeen xasanow kani wuxuu ahaa wiilkayga wuxuu ahaa mid caasi ah aadna u qalbi adag dadka magaaladuna way wada garanayeen ma jirin shay caragelinaya allah subxaanahu wa tacaala ilaa waa uu sameeyey oo waa la yimid laakiin arrinta dadku aanay ogayn waxay tahay wiilkaygu wuu toobad keenay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu u soo noqday habeenkii saqdhexe inta soo kaco ayaan alle subxaanahu wa tacaala gacmaha u taagan jiray waxaana odhan jiray rabbiyow rabbi aan adiga ahayn malihi ilaahow wiilkaygan caasigaa ii hanuuni balse dhibka jira wuxuu ahaa horraan ayaan u habaaray ilaahay subxaanahu wa tacaalana labadaydii duco tii hore ayuu aqbalay oo ahayd habaarkaygii aan markii hore habaaray waxaa markaa ku dhacay oo haleelay xanuun fariisiyey oo uu ka socan waayey intaa kadibna xanuunkii markii uu ku darraaday oo geeridii u soo dhowaatay ayuu ii yeedhay wuxuu igu yidhi hooyo macaanay kaalay markaan u imid ayuu intaa ii sii raaciyey hooyo haddii aan dhinto ilaah baan kugu dhaariyey dhabankayga inta dhulka dhigtid dhabanka kale iiga istaag cagtaada iga saaro markaa waxaad tidhaahdaa tani waa abaalmarinta mid kastoo caasiya rabbigii oo khilaafay oo ka soo horjeestay amarka rabbigii waxay tidhi waayahay waan samaynayaa kadibna wuu isoo eegay eegmo qof isagootinaya oo kale wuxuuna igu yidhi hooyo ilaah baan kugu dhaariyee ciddayda ama qaraabadayda ha u sheegin geeridayda sababtoo ah khayr weligood iguma arkin naxariisna ilaahay subxaanahu wa tacaala iima weyddiin doonaan intaa kadib 4 nin soo kiree ama soo ijaar oo ha i dhaqeen oo ha i kafaneen kadibna ha i qaadeen oo ha i aaseen intaa kadibna hooyo ilaah baan kugu dhaariyee qabrigayga ag istaag 1 saacad oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ii bari hana ka soo tegin qabriga iyadoon ilaahay subxaanahu wa tacaala calaamad aniga iga kaa tusin waxay tidhi xasanow wallaahi qabriga ayaan ag joogsaday ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan gacmaha u taagtay waxaana idhi rabbiyow rabbi aan adiga ahayn malihi rabbiyow rabbi aan adiga ahayn malihi addoonkaaga u naxariiso kadibna ilaah baan ku dhaartay tiri wiilkayga codkiisa ayaa qabriga ka maqlay isagoo ileh hooye iska tag ilaah baan ku dhaartay waxaan helay naxariistii alleh ilaahay subxaanahu wa tacaalaana waa akramul akramiin inta deeqsigaa kan ugu deeqsisan uguna naxariis iyo gallad badan haddaba addoonka alla caasiyeyow wejigee baad ilaahay subxaanahu wa tacaala la hortegi doontaa weli waad nooshahay oo neefsanaysaa fursad ayaad haysataa weli wakhtigii kaama dhammaan weli waad joogtaa ee fursadda ka faa'iidayso hana quusan oo naxariista rabbi weligaa ha ka quusan ilaan mu'miniintu maahan kuwa yaqaana quusta قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم
وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين waxaad dhahdaa nebiyow addoommadayda ku xadgudbay naftooda ha ka quusanina naxariista eebbaa dhaafa dembiyada dhammaantoode waana dembi dhaaf badane naxariis badane oo u noqda eebbihiin una hoggaansama ka hor cadaab idinku yimaadoon laydinkaga gargaarayn oo raaca ka wanaagsan ee laydinka soo dejiya eebbe xaggiisa ka hor cadaab idinku yimaada si kada ah idinkoon ogayn ama ay odhanayso naftu shallaytee waxaan ku gabadfalay cibaadada eebbe waxaana ka mid ahaa kuwa jeesjeesa ama ay odhanayso dhahayso haddii eebbe i hanuuniyo waxaan ka mid noqon lahaa kuwa dhowrsada ama ay odhanayso markay aragto cadaabka hadday noqosha ii sugnaan lahayd waxaan ka mid ahaan lahaa kuwa muxsiniinta ah ee samafalayaasha ah saas ma aha ee waxaa kuu yimid aayaadkaygii waadna beenisay waadna isweynaysay waxaadna ka mid noqotay gaalada